kalsoonaado iyo waddankiisa waxa weeyna ka qabtay waddankii waa nin dhalinyaro ah hadda marka wargeys ka soo baxa waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu leeyahay madaxweynaha Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ayaa noqday mid ka mid ah hogaamiyaasha ciidan iyo siyaasiga ugu saameynta badan galbeedka qaaradda Afrika haddii ay ahaynba Afrika oo idil wuxuuna si weyn uga muuqdaa warbaahinta sabab la xiriira mowqifkiisa geesinimada leh ee ka dhanka ah siyaasadaha reer galbeedka ee qaaradda Afrika kuwaas oo u arko kuwa u muuqda in Afrika lagu hayo jahli iyo bililqa qorshaysan warbixintan wargeyska uu qoray ayaa waxa lagu sheegayaa in reer galbeedku ay doonayaan inay xukunka ka tuuraan Ibrahim Traoré ama xitaa la dilo waxaan la soo bandhigay warbixin la sheegayo in siyaabo kala duwan lagu helay oo ah in mustaqbalka hogaamiyaha dhalinyarada ah meesha laga saaro bacdama hadaladiisa ay noqdeen hadallo aad u adag marka wargeysku ma uusan dhihin ciddaas baa ku lugta leh laakiin waxaa la soo qaadanayaa ciidankan ka yimid ruushka oo amnigiisa imika ilaalinaya dhowr jeer oo ka badbaaday isku day dil arrimahaas oo idil ayaa loo soo qaatay marka waxay leeyahay ninkan noloshiisa qatar ay ku jirtaa ama bac qafiif ayaa lagu sidaa waa gartay mawlid reer galbeedka iyo sidoo kale Traoré maxay tahay xiisadan ka dhaxaysa labadooda maxaa sakicinaya xiisadan oo sababay waa xagga aragtida marka ugu horeysa isagoo wuxuu wataa falsafad ah dadka Afrikaanka inay danahooda leeyihiin ninkani wax badan buu ka qabtay wadankii cisbitaallo dhisay beerihii buu gacan ka geystay wuxuu kaloo sameeyay horumar weyn jidadkii inkastoo wadanka qaybo kamid ay ka dagaalamayaan kooxo maleeshiyada oo magac diimeed ku dagaalamaya oo al-Qaa'ida ISIS la xiriira laakiin haddana amniga wax badan buu ka qabtay diyaarad ayuu soo iibiyay oo shirkadda diyaaradaha wadankaasi ay leedahay caafimaadkii wax weyn buu ka qabtay arrimo fara badan buu marka ninkani dhalinyarada uu ku guuleystay meeshana wuxuu la yimid ahdaaf ka duwan wixii lagu yaqaanay madaxda Afrikaanka oo ahaa inay lacag u urursadaan 37 sano nin jira weeye inkastoo afgembi ku qabsaday wadanka 2022 bishii September 3keedii haddana waa nin darajada ciidan xagga hoose ka soo bilaabay oo 2010 ayuu ciidamada ku soo biiray bishii January 2023 dhowr bilood kadib afgembiga wuxuu amar ku bixiyay in dalka laga saaro ciidamada Faransiiska waa meelaha ugu waaweyn ay isku qabteen reer galbeedka wuxuuna sidoo kale eriyay wakiilkii militariga ee safaaradda Faransiiska iyo 3 diblomaasi oo kale warbaahinta reer galbeedka ayaa si xoogan u weerartay hogaamiyaha dhalinyarada ah iyagoo ku tilmaamaya inuu yahay wasiyada loo dhigay nin markaasi dictator waxa kaloo jira in laga dhex abuuray xaalado kacsanaana gobolka saaxil galbeedka qaaradda Afrika horraantii sanadkan taliyaha ciidamada Africom oo ciidamada Mareykanka ee Afrika Michael Langley ayaa ku eedeeyay Traoré in uu ka ganacsado wasiyada ku dhigay ama si qarsoodiga uu dhoofiyo dahabka Burkina Faso laakiin dawladda kumeel gaarka ee magaalada Ouagadougou ee caasimadda waddankaasi Burkina Faso waa ay beenisay eedamahaasi waxayna ku tilmaamtay in lagu beegsanayo hogaamiyaha dalkaasi arrintu marka waxay noqotay arrin Ibrahim Traoré si adag loo dhaliilo inta badan wadamada reer galbeedka ay dhalishan ka imaanaysa waa tahay marka maxay tahay xogta la xiriirta taageerada Traoré ee warbixintan lagu xusay warbixintu waxay leedahay ninkan wuxuu ka helay taageero aad u fara badan iska daa wadanka Burkina Faso wadamada galbeedka qaaradda Afrika iyo xitaa Afrika oo idil sida falaqayntu ay sheegaysana waxa la leeyahay dadka intooda badan waxay la jaan qaadayaan hadaladiisa ka dhanka ah guumeystayaashii qaaradda Afrika oo uu leeyahay khayraadkii Afrika ayay horeen u qaateen haddana si dadban ay ku dhuuqayaan wuxuu kaloo ka hadlay si lamida sida hogaamiyaasha kale ee galbeedka qaaradda Afrika sida Mali iyo Niger oo kale in markaa loo baahan yahay in la fiirsho xiriirro ka duwan xiriirada reer galbeedka gaar ahaan Ruushka iyo Turkiga ayuu heshiis la bilaabay gaar ahaan dhoofinta hubka taageerayaashiisa waxay u arkaan go'aamadiisa kuwa geesinimo leh sida bixinta adeegii bulshada oo bilaash ah iyo in meesha uu ka saaray ciidamadii Faransiiska kuwaasi oo lagu tilmaamay inay yihiin tilaabooyin lagu soo celinayo madaxbannaanida waddanka sidoo kale waxa iyaguna ka hadlaya arrintan hogaamiyaasha kale ee qaaradda Afrika oo halkan waxa ka muuqda
isaga iyo labada hogaamiye waddanka Niger iyo Mali oo ay samaysteen isbahaysiga saaxil oo hadda xitaa ay ka fakarayaan hal lacag iyo hal baasboor inay samaystaan waxay ku doodayaan maxay tahay sababta loo isticmaalayaa lacagta faranka Faransiiska oo galbeedka qaaradda Afrika aad looga isticmaalo oo go'aankan uu iska leeyahay bangiga dhexe ee waddanka Faransiiska marka calaamadahaas ayaa keenaya in ninkan dhalinyarada 37 jirka ah hormuud uu noqdo isla markaasna qatar uu ugu jiro in la dilo maxaa yeelay xitaa hadda ka hor waddankan hogaamiye dhalinyarada wax ka soo baxay Thomas Sankara isagana waa la dilay waa tahay gabagabadii Mowlid warbixintu waxay soo qaadatay madax Afrikaan ah oo la dilay iyo sida ay u dhici karto in la dilo Captain Ibrahim Traoré bal arrintaas inooga waran saddexdan nin saddexda waxa la yiraahdaa qatar bay ku jiraan sababtoo ah saddexdu waxay ka saareen wadankooda Faransiiska iyo ciidamada Faransiiska ninka dhexda ku jira Cabdiraxmaan Tishani waa madaxweynaha Niger isaga waxa uu sii dheer xitaa saldhig Mareykanku uu ku lahaa waddanka Niger ayuu xiray wuxuuna ahaa saldhigga ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay galbeedka qaaradda Afrika ee diyaaradaha droonka $100 milyan ayaa Mareykanku uu ku dhistay barqacad ayuu ka saaray waddanka 1,000 askari oo Mareykan ayaa joogtay arrinta la yaab kale waxay ahayd isla subaxnimadii ay baxeen ciidamada Mareykanka subaxii ku xigay ciidamada Ruushka ayaa meeshii yimid oo tababaraya ciidamada Niger madaxweynihii waddanka Niger ilaa iyo hadda xabsi guri ayuu ku hayaa waa ninkii xukunka uu afgambiyey marka saddexda nin waxa la yiraahdaa waa saddex nin oo qatar ugu jira in la kharajiyo marka su'aashaada haddaan u daadego warbixinta wargeysku wuxuu leeyahay ama waxay sheegaysaa in sidii horey u dhacday hogaamiyaal badan oo qaaradda Afrika in la dilay oo ka soo horjeestay reer galbeedka waxaa ka mid ah hogaamiyihii reer Congo Lebombo oo la dilay 1961 madaxweynihii Ghana Kwame Nkrumah ayaa la afgambiyay isagana 1966 iyadoo la kaashanayo CIA-da Mareykanka hogaamiyihii dhalinyarada ah ee waddankan hadda uu ka soo jeeday Ibrahim Traoré Thomas Sankara ayaa isna waxaa la dilay 1987 iyadoo lagu xiriirinayo Faransiisku inuu lug ku lahaa Gaddafi oo kale waxaa la yiraahdaa dilkiisa waxa uu sababsaday kadib markii uu yiri waxaan rabaa in Afrika u sameeyo lacag dollar ama midaysan iyo in lacag waxa uu jeedaa dollarka oo kala oo markaasi dahab ah oo laga isticmaalo qaaradda Afrika iyo fikir ah in Liibiya shidaalkeeda ay ku iibiso lacag aan dollar ahayn arrimahaas kale ayuu eersaday hogaamiyaal kale way jiraan qaaradda Afrika laftigooda oo yaraada xukunka laga tuuray ama waa la khaarajiyay si dadban laakiin ragga ugu caansan waa hogaamiyaasha cabsidaas marka ayaa jirta isaguna sababtaas ayaa keentay inuu muujiyo cabsidaasi haddaan sawirkiisa fiican u eegno gacantiisa waxaa ku jirta gacmo gashi ciidamada loogu talagalay ciidana ma u salaamo cidda kaliya ee uu salaamo ninkan waa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dadka kale wuxuu u salaamaa labada gacmood ayuu saas kale iskugu dhuftaa laakiin ninka uu gacanta kaliya ka salaama waa Vladimir Putin haddii aan isku dayno marka Putin inaan helno isagoo salaamaya dabcan halkaas sida ka muuqata marka waa isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maruu ka qayb galayay shir ka dhacay waddanka Ruushka madaxweynaha kaliya iyo cidda kaliya ee u salaama waa madaxweynaha Ruushka sababta waxa saas loo leeyahana waxa la leeyahay isagoo ma soo oran laakiin waxa la yiraahdaa wuxuu ka cabsi qabaa xitaa gacanta intii sun la soo marsado in suntaasi lagu kharajiyo markuu meelaha qaarkood booqanayo oo kale waxa la socda rag isaga oo kala oo sidiisoo kale u labisan isla markaasna mararka qaarkood amnigiisa aad loo ilaaliyo waxayna noqotay in si gaar ah amnigiisa loo ilaaliyo oo uu isku koobay rag uu ku kalsoon yahay inay ilaaliyaan inkastoo hadda ka hor mar la damcay in lagu sameeyo kacdoon ama afgembi oo dad ka tirsanaa xarunta madaxtooyada dhowr bilood ka hor ayaa waxay sameeyeen